balabaha naftayda la galay waxa kamid ah in meel kasta oo tago iyo wax kasta oo qabto aan kaga tago sidii aan ugu yimiday si ka fiican ka waxaan rajaynayaa waxaynu halkan ku wadaagayno in aniga iyo idinkaba uu insha Allah wax weynina taro anagoo kala faa'iideysanay aynu kala tagno walaalayaal barnaamijyo iyo wacyi iyo macluumaad ku saabsan korriinka qofka inaan sameeyo baa bulshadeenu iga baratay muddo 12 sanadood ah hadda aan si joogto ah oo kala go' lahayn ugu jiray masraxa bulshada Soomaalida ee aan beegsanayna maalin qura igamay maqal igamay arag igamana hayso wax ka baxsan wax qofnimada iyo qoyska iyo dadnimada dadka Soomaaliyeed dhisayo waxaan hayn waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa inuu igu sugay dariiqa waxaan ku noolnahay duni inaad ambataay fududahay marka in aad dul joogtid dariiqa aad u maleynaysid inuu adigana wax ku tarayo dadkaagana wax tarayo 12 sanadood oo isku xigxiga iyada laftigeega 10 markii aan yaraayeen helay wacyiga in qofka gudihiisa ku mashquula oo naftiisa ka dhigta mashruuca ugu weyn ee uu haysto oo inuu isdhisaa u arka albaabka laga galo horumarku markii wacyiga helay ma noqon qof baqayl oo isiri adigu isku mashquulo naftaada iyo qoyskaaga uun ku ekow laakiin la jeclo aan ka qabay dadkan la korayay iyo dadweynaha Soomaalida ayaa igu khasbay inaan isiraaho macluumaadkani aduu adigu bedelay qof kale inuu bedeli karaayo fidi markaas ay ahayd markii aan masraxa fuulay anigoo yar tamar yar resources iyo khayraadka iyo agyaala ay suquuq yihiin waxa kaliya ay ahayd niyad wanaagsan iyo jacaylan jecelahay inaan sidaan u fikirayo sheego wax kale ma hayn marka bulshadayda aan ku dhex korayay macluumaadkan anigu helay aanu malaynayay inaanay helin way qariibsatay marka waxaan kala kulmay dagaal fakar oo aad u weyn iyo waxaan rabay inaan ka sheekaysano laba shay labada shay waxa weeye qof kasta halkan fadhiya wuxuu u fadhiyaa waayo wuxuu u malaynayaa halka inay tahay meel kamida meelaha u dhaweynaya waxa qalbigiisa u dhaw muhiimka masaxanahay mise waan khaldanahay wax kastood qabatid maalin kasto kamida maalmahaagu waxaad u malaynaysaa inuu yahay wax weyn oo wax ku dhaweynaya rajo adiryanaysa sax soma okay marka waxaan maanta ka sheekaysanaynaa inuu qofku wax noqdo ahaantiisa iyo qof ahaantiisa inuu qoyskiisa wax taro dadku ka dhashay wax taro si guudna ibn aadantinimada iyo dadka caalamka ku nool uu qof faa'iido u noqdo masirba mise waa system kaanu waxaan idin la wadaagayaa waxaan ka aqaan wax noqoshada waxaan ka ogahay isbedelka qofku uu sameyn karo intaananu ku dhex jiray baadi goobka waxaan noqon karo ee aan ku dadaalayay inaan nafteeda ka qaado qodobka koobaad ee geynay qodobka labaad inta wixii aan ku bartay iyo wixii aan ka bartay qof kastoon u malaynay inuu natiijo fiican dadaalkiisa ka keenay waxaan ku bilaabayaa walaalayaal hadda maxaan ahay ayaan ku miisaameynaa oo barbar dhigaynaa maxaan noqon karaa halka waxa ka soo baxaysa inaad haysid dariiqii aad wax ku noqon lahayd iyo inaad amba tahay oo ka sii fogaanaysid dariiqa laftigiisa halkaas ka soo baxaysa in si joogto aad ugu joogto dariiq ku geynaya wax qalbigaaga macno u leh inaad si joogto naftaada ugu ilaaliso dariiq aad isleedahay wuxuu ku dhaweynayaa meeshaad rabtid inaad tagtid maalin kasta waxaad su'aasha maskaxdeeda ku noqnoqotaa ay tahay maxamed ma joogtaa dariiqii ku dhaweynayay wax macno ku leh haday su'aashu ha tahay anuu walwalsanay ma seexda maalin kasta oo waqtigayga ama aan tamartayda geeyo meel aan isleeyahay waxay ka weecisay meeshii ku muhiimkii adoo walwalsan ma seexanaysa aniguna maaha waa inagoo dhan waxa laga yaabaa inaan ku qornin waxa laga yaabaa inaanad cod dheer ku sheegi karin laakiin qalbigaaga waxa ku jira wax ku muhiima oo isleedahay halkaas waa inaan mar soo taabtaa soo sama wuxuu noqon karaa wax shaqada la xidhiidha
wuxuu noqon karaa wax la xidhiidha maaliyadda wuxuu noqon karaa wax xidhiidhada la xidhiidha wuxuu noqon karaa wax ruuxaaniyaadka la xidhiidha wuxuu noqon karaa wax caafimaadkaaga la xidhiidha qof walba wax baa qalbigiisa u dhow marka waxaas hadda qalbigaaga u dhow ama sheego ama ha sheegan ama ha qornaado ama yaanu qornaan su-aashu waxa weeyaan waxaa qalbigaaga u dhow dhinaciisii ma u socotaa hadda halkan aad fadhida laftigeegu ma halkaasay u socotaa mise halkaasay ku tahay minus oo laga jaraya marka anu waxaan intii aan ku jiray masraxa naftayda kula dadaalayay inaan naftayda soo saaro oon meel keeno oo naftayda aan koriyo oon iska dhigo qof macno leh qof naftiisa ka adag qof goobo kastuu joogo faa'iido kordhin kara intaasaan isku dayay maan haysan imkaaniyaad badan oo wax iga dhiga waxyaabaha qiilka ay ka dhigtaan dadka aan abaarin waxa ma aragtay dhabta ay tahay laga jawaabo waxay qiil ka dhigtaan waayo ma haysto resourceski waa run marka laga hadlayo isbedel ama wax noqosho ama wax gaadhid waxa markaaba maskaxdaada ku soo degdegaya maxaa ii saamaxayay inaan wax gaadho soo ma waa resourceski laakiin arrintan laga dhuuman karin ee dhabtii waa halkan darajo kasta oo noloshaada marxalad kasta oo noloshaada ku jirto waxay u baahan tahay qof kale oo adiga ah different you ayay u baahan tahay sidaad u fakaraysaa waxay ku siisay waxaad hadda haysato qofkaad hadda tahay wuxuu ku siiyey waxaad hadda haysato waxa kaa maqanna waxa keeni kara qof ka duwan adigu qofkaad tahay qaacido waxay jirta marka laga hadlayo the psychology of achievement dad wax weyn rabtid waa inaad wax weyn noqotid ahaanshahay ka bilaabantaa lahaanshaha kama bilaabanto hadda haddii qof aan ismoodayay inaanu wax weyn gaari karin aynu siino khayraad badan khayraadkaas badani ma damaanad qaadayo inuu meeshaa gaari karo unless uu barto in khayraadka sida loo isticmaalo hal dhaweyd waxaan internetka ku arkay waanad aragtay maan malaynaya nin god ku dhex jira salaan waad garanaysaan haddii aynu kala lahjadi duwanno gobollo kala duwan aynu ka nimanay jaranjaro marka salaanadaasoo badan baa yaalla meesha godku ku jiro salaanadaasi ma tiirsano markaasaa uma taagna laakiin way fidsan yihiin iyagoo fidsan bay isdul yaallaan ninkaasi wuxuu isku dayaya inuu salaanadaa isdul saarsaaro si uu uga soo baxo kamana soo bixin weli waxa u fududayd oo saxdu ahayd inuu salaanadaa mid ka mida intuu qaado sare istaajiyo oo si fudud soo fuulo khayraadkii oo batay iyo salaano badan oo meesha yaalla ninkaa godka kamay soo saarin dhibaatada ugu weynaa innaga soomaalida dhexdeeda ka jirtaana waa taa waxa ku badbaadin karaa inaad adigu noqotid resourceful inaad taqaanid xirfadda iyo farsamada looga faa'iidaysto khayraadka marka kuguma filna inaad khayraad badan haysatid dadka qaar waxay kaga dhigtay badnaan inaynu raadino wax badan lacag badan magac badan dad badan meel badan dhul badan badnaan baa inagaga dhigtay waayo laga yaabaa backgroundkeena markaa dib ugu noqoto korriinkeena iyo mujtamacaan ka nimanay waxa laga yaabaa waxaan ku soo kornay nolol suquuqul leh oo wax walba inagu yar yihiin marka psychologically waxa qalbigaaga degan in waxaas kugu yar darteed aad wax u seegtay marka halkaa waxay noqonaysaa inaan dib ugu noqonno nidhaahno wax badani maaha damaanadee damaanadii waxa weeye waxaan hayo sideen u isticmaali karaa waxa la yidhi doqon sii $100 wuxuu kuu soo noqon isagoo haysta alaabu soo gatay qof abqari oo caqli oo fakara sii $100 wuxuu kuu soo noqon isagoo $200 wata qofna wuxuu garanayaa $100kaas looga shaqaysiiyo qofna wuxuu garanayaa $100kaas wax loogu soo gato qof manhagiisi waxa weeye lacag marka la arko waa la isticmaalaa qofna manhagiisi waxa weeye lacag marka la arko meel baa la dhigaa oo iyada loo saamaxay inay shaqaysiiso qof manhagiisi waxa weeyaan dollar kasta oo noloshaada dhex yaala waa shaqaalahaagii haddaad shaqo u dirto shaqo geliso lacag kalu keeni doonaa marka eg maaha khayraadka waxa isbedelka nolosheena ku keenaya isbedelka waxa nolosheena ku keenaya waa sida khayraadka u arag waa waxaan haysanay imkaaniyaadka adduunyada leesaan u arag so here is a system waxyaabo aan isleeyahay way kuu shaqeeyeen oo macno u yeeleen noloshaada oo natiijooyin macno kuu lahaabay kuu fududeeyeen ayaan idinla wadaagaya anay waxay tartay it changed me dadka badankiisa halkan fadhiya waxa laga yaabaa in aanay yaraanteedii garanayn qof ahaan in aanay garanayn baa laga yaabaa laakiin barasho wanaagsan anaa iskaa baraya maanta markaan yaraayan koray malqaacadda haba afkayga kumaan haysan cidna imay aqoon qof tirsan oo mujtamaca dhexdiisa dadka la tilmaamo ama ahayn qoys ladan kamaan iman kumaan soo korin nolosha ugu qurux badan ee ku riyoonayso ama ciyaalkaaga aad u rabto inaad u samayso taa cagsigeega waxaan ku soo koray nolol adag suquuqul badan hayn yar baahi badan dagaal iyo colaad
gudahaygu wuu dundunsanaa tiir quroo kor ii hayn karo ii jiray ma jiro xitaa wejigayga dadka maan deeqsiin jirin si aanaan dadka isku arkaan dugsiga laga sii baxayo ama la soo galayo ama waan ka daahi jiray si dadku markay u galaan aan kaliga u galon la ii arag level of lack of confidence ka soo baxay kaas waa bas maan arkayn wax qiimo ii yeelaya and I had no clue si aan wuxuu noqon karo duruufaha iyo dhibaatooyinkan soo arkay baa ii sheegay inaan waxba noqon karin iyadoo san wax yihiin jimce maalin anagu masaajidka jaarkaa ku tukanaya ayaa sheekhu wuxuu yidhi intaan ku ducaysanayno ilaahow dhibaatada iga ilaali waxaad tiraahdaa ilaahow dunyadu waa imtixaani joog baa leeyahay ee dhabarkii adkaysan lahaa isii ma aqaan wax baa maskaxdayda isbedelay marka hore waxaan ka baqi jiray dhibaatooyinka waxaan islahaa adoo sidaa ku sugan haddii dhibaato ka weydi timaado dee waad hooyatay but that day I don't know wax baa isbedelay waxa ii daarmay markaa faham ah no intaad ka baqaysid inay wax dhacaan waxaad ka baqdaa inaad waxa u adkaysan weydo so leydkii iigu shidnaa masalooyinka iyo dhibaatooyinka iyo caqabaduhu wuxuu ku soo wareegay gudahayga waxaan isweydiiyey markaa hadday maanta wax dhacaan ama wax kugu dhacaan ama aad wax weydid intay leeg ba sii joogi kartaa ma adkaysan kartaa ma ka soo gudbi kartaa marka waxay noqotay masalo naftaydii ku saabsan marka waxa ii soo baxday maxsuul ah wax kastoo dhici kara ama wax kastoo hareerahaaga ka dhacaya ama wax kastoo kugu dhaca waxa ka weyn waxa gudahaaga ka dhaca waaba ii bari waxa marka aan ku baraarugay shaqadu inay tahay shaqada banaanka tuka duwan oo shaqo gudeed inay tahay markaasaan bilaabay marka inaan gudahayga ku mashquulo gudahayga soo dhiso iska soo shaqeeyo oo baylaha badan oo aan moodayay inay hareerahayga taalo ayaa maskaxdeedii ka jeesatay waxa ku soo jeesatay beelaha badan oo gudahayga taalay waa markii igu horeysay noloshayda aan bilaabay inaan talaabooyin dhab ah oo aan ka tashaday oo qorshaysan aan u qaado inaan anigu iskoriyo anigu isku mashquulo oon xirfado barto oon luuqada barto oon dad barto marka halkaas ka soo bilaabay qodobadan aan idin sheegay hadda oo wixii aan dhinaca kale jeediyay idinkana waan hubaa ama elements ka midii noloshaadu way soo mareen wixii ugu horeeyeen isiri way ku bedeleen ama waxbay ku tareen ma ogeyn markaa but now hadda markaan halka joogo markaan dib u eego waxaan isleeyahay waa tan sheekadii ciyaartaada bedeshay kow waxa ahayd maskaxda intaa yare kurka waa aragteen anoo leeb madaxa ka soo adkow waxa dhan ee laga sheekeynaya waa intaa yar ka soo adkow maanka intaa yare kurkaaga hadda ka soo adkaato wax walba waad ka adagtahay waxa ugu horeeyeen ka soo adkaaday wuxuu ahaa maanhageeyo soo wadankii baynu ku soo wada kornay soo duruufaha la koraysaa waxay leeyihiin saameyn qalbigaaga ku reebaan mararka qaar dadka qaar waxay qeexdooda ama identitygooda ka soo qaataan dhibaatooyinka ku dhacay maadaama wax kugu dhaceen waxaad isleedahay waxaasaa tahay ilaa aad hesho farash kuu sheega in dhibaatadii adigu ay isku mid ah dhibaatadu ay dhib tahay adiguna qof kale aad tahay ilaa definition nooca aad hesho dee dib isku qeexdo dadku waxay u badan yihiin waxyaabaha ku dhacay inay ka soo qaataan qeexdooda wixii ugu horeeyay markaan isiri inaad wax ka bedel saan u fikirayay sheekan markaa idinka sheekeynaya waxa jira nin xaafis leeyahay oo sheeko caana oo marka laga hadlayo manhajka tusaale loo soo qaato xaafis wuxuu deganaa tuulo yar marka meel yar oo beer yar buu lahaa beertaa qulqul yar oo biyaa dhex mari jiray nin iska ladan buu ahaa qoyskiisii xaaskiisii ciyaalkiisii xoolihiisii nin ilaahay nimceeyo iska degan buu ahaa nolosheena kama dhammaato ka jiidho qof kaa jiidho maaragtay daaqadaha walwalka kuu fura inagama dhammaado waa aragteen waxa laga yaabaa baa u yimid ninkii wuxuu ku yidhi waryaa ma intanaad ku qanacsan tahay ma intan war qayrkaa waxaan ka weyn buu hiigsanayaa weliba dadkeenu aad baan farshaxan ugu haysanaa in lagaa niyad jabinayo qayrkaabaa lagu odhay marka qayrkaa lagu odhaa meel baa lagu qabanaya waxaa is leedahay wallaahi waa runtii ayaa is leedahay wuxuu ku yidhi qayrkaa adduunyuu hiigsanaya magaalooyin buu dhisanayaa waddanno dhan bay maamulaan adiguna halkaa beer yar aragtay ar yar dul fadhida oo maxaan sameeyaa buu yidhi markaa wuxuu yidhi haddaad suulkaa in leeg oo dahabe hesho ama diamond magaaladaadoo dhan baad gadan kartaa haddaad feerkaa in leeg oo diamond heshana waxaad gadan kartaa waddankaagoo dhan marka diamond baa adduunka ka shidane diamond raadsa buu ku yidhi oo dhulka dhan uga dhaqaaq wuu ka tagay ninkii saaxiibkeen waxa bilaabay marka waxa uu furmay daaqadii walwalka iyo walbahaarka wayna nagu badan tahay habeenkii ma seexan markaa saaxiibkeen arbayniyo arrintaas run tahay arrinta armay wax ka jiraan marka
qalbigiisiiba ku soo noqnoqotay markii dambe wuxuu go'aan ku gaaray in diamond ay ka shidantay uu raadiyo marka wuxuu ku bilaabay xoolihiiba horta gaday haddana wuxuu gaday beertii haddana wuxuu gaday gurigii iyo meeshuu deganaa oo dhan lacagtii yarad markuu isku hubsaday buu yidhi warniyahow diamond haatan raadinaya reerkiisii yaraa buu guri bannaanka ayaa u yabyabay meel kale oo dee aanu lahayn buu dejiyey ninkii safar buu galay diamond buu raadinayaa diamondtii uu raadinayay markaabaa adduunyada u galay uu maray Africa Asia soo galay markii dambe Barcelona magaalada la yiraahdo ayuu tagay markuu halka marayo waxa ka dhamaaday lacagtii uu daalay uu niyad jabay oo qoostay markii dambe dee dhaqaalihii uu dhamaaday reerkii banaan baad soo dhigtay xoolihii waad gubtay adigiina natiijo ma haysid subxaanallah ninkii wuxuu isku tuuray webi Barcelona ku yaala halkii buu ku dhintay gurigiisii ku soo noqo gurigiisii baa ninkii ka jiiraha ayaan idin sheegay ayaa gurigii ku noqday wuxuu arkay gurigiiyo iska siraadanoo albaab miis yar oo ku cuntayn jiro daaradda u yaalay iftiin yar ka wadwarayo waa markaa feed way markuu soo galay wuxuu ku yiri ninkii xaafis baa soo noqday ma yabu xaafiskaas guriga baa hor naga gaday oo waa isagu waa lagala wareegay oo waxaan dhalaalayaa maxaa marka ninkan waxa uu sawiran xaafis wuxuu soo helay diamond iyo waa kan dee iftiinsanaya wuxuu yiri maya xaafista waa naga iibiyo waa naga tagay oo waxaan iftiimay waa maxay waa dhagax yar oo ka soo qaaday qulqulka yar ee biyaha dhex maraya beerta dhagaxii baa la eegay dhagaxii waxa la ogaaday inuu deeman yahay halkii aad ka soo heshay soo eeg baa la yiri halkii ay ka soo heleen qulqulkii baa la dul tagay waxa la ogaaday beertii dhannayd iyo gurigii uu deganay area-dii oo dhan inay diamond ku fadhido oo tahayba meel diamond badan laga heli karo saaxiibkeen xaafis xaguu tagay muxuu isku dilay diamond buu isku dilay soma diamondtii halkay taalay gurigiisii bay taalay laakiin wakaa marka inaga waxa aad inooga dhaadhacsan oo inaga gadan in qof kale ka fiican yahay in meel kale ay ka shidan tahay in waxaad haysid wax ka fiican qof kale hayo in intaad haysid ay yar tahay marka lala barbar dhigay inta cibaado ama inta muumin ya waxaan hayno inooma dhadhamaan ma aragno mar walba waxaad moodaysaa in dhinaca kale ay ka shidan tahay mar walba waxa la inagu yiraahdaa doogu xagga kale uu ka shiday beertu xagga kale nafaqo kale leedahay waad aragteen oraha caana jirta the grass is green on the other side so samaha waa been graaska ama cawsku wuxuu nafaqo kale uu ka udgooyo uu ka doogsan yahay kolba halkaad ka waraabisaadu haddaad soo weecisood hoostaada keentood aduu malayso you doing fine waxa ka dhimana dariiqiisa baad haysaa you're still right taasna waad ku saxsan tahay meesha uu fikirkaagu jiro ayay tamartaadu tagtaa marka sheekadaasi waxay ahayd sheekadii noloshayda oo dhan dhinaca kale u jeedisay so furaha maanta laga galo barwaaqada iyo isbedelka iyo horumarka aad naftaada iyo qoyskaaga iyo dadkaaga ka dhex samayn kartaa waa sidaad adduunka u arkayso waa filterkaaga waa muraayadaha aad xidhan tahay laba qof oo isku qoys ka dhashay oo isku duruuf ku nool ayaa qofna uu ka odhanaya maxaa halkan yaala qofna uu ka odhanaya am content intaan haysto waan ku faraxsanahay halkan ka yimid ayaa ka fool xumeed halkan joogo qofna uu intaa quursanaya uu leeyahay nin waxba waxaan wax lagu farxaa waa maskaxda waa intan yar waa maanka waa sidaad adduunka u aragto waa maanhagaaga dhadhanka noloshaadana ma keenaan waxaad haysato ama ha ku yaraado ama ha ku bataan ee waxa keena macnahaad siiso waxaad haysato nin baa lagu yidhi ma lacag lii baa too hanti badan baad haystaa wuxuu yidhi ii kaadi nin caqli badan baa wuxuu yidhi haddaad eegto meeshaan ka yimiday ha lacag badan baan haystaa nin ladan baan ahay haddaad si eegto meeshaan u socdo may nin caadiyaan ahay ku kale la weydiiyey ma hantiilaa tahay maxaan haysanaa intan yar baan isku celcelinaynaa 10 sano baan intan wadnaaye you know that si fiican baad ogtiin soo ma si qof baad weydiin ood ku odhan bal nolosha ka war wallahi waa iska caadi buu ku odhan qof kalead weydiin nolosha ka waran waan faraxsanahay dadka qaar waxaad moodaa markay nolosha dhex socdaan sidii kalluun badda laga soo saaro oo dhintay wallahi waa iska caadi waa khayr baan wadnaa weli dee bal hadda waa qof dilan oo maaragtay wuxuu haysto iyo wuxuuna haysan maaha xaqiiqda dhabtee jirta xisaabtu taa maaha equationkii xisaabtu waxa weeyaan waa maskaxdiisa madax culus oo ka dhex buuxaan fikirro faasida ayaa ku jira siduu wax u arkayaa dilan qofkan laabtiisa fool xun adduunyadu arkayo wuxuu malaysanayaa xun wuxuu maqlayo wuxuu arkayo wuxuu ku hadlaa xun
and therefore wuxuu arki waaye wuxuu qabsan karo. So change kan ka sheekaynayna ama inaad wax noqotidi ma aha inaad wax badan heshidii inaad wax badan helin waa sidaad adigu aragto waxay nagu dhacaa ma aha muhiim waxa ka muhiimsan waxay nagu dhac macnahan siino laba qof oo sariirta wada jiifo dhakhtarka ku wada jira ayaad u tagay walaal iska waran baad mid oran wuxuu oranayaa wallahi waa liitaa maanta qof kale aad arkiyood ku oran walaal iska waran ilaahay ma hadi weeyaan maalintii la keenay ma hadli karin xitaa it's mindset waa fikirka waa soo fikirayso waa waxaad isku sheegayso waa waxaad ka fikiraysid waxaad maqlayso waa waxaad afkaaga bartay xitaa subxaanallah iyaga nooga qisad waa ogtiin markaan sii dhimanayno waxa la yiraahdaa malaa'igtu waxay qabataa qofka qalbigiisa way tuujisaa waxay afkaaga ku badnaaba ka soo booda saacada ugu awoodda badan leh maalintaadu waa 30 daqiiqo marka aad soo toosto ugu horeeya iyo 30 daqiiqo ka horeeya marka aad seexato waa labada jeer maskaxdaadu ay wax aqbali ogtahay aroortiina markaad soo toosto maskaxdaadu waxay ku leedahay ii sheeg waan raaciye markaad sii seexanaysana waxay ku leedahay bari maxaan qabanaa xaaji dadka fahma intaas 30 midna ugu horeeyna waxay ku dadaalaan inay naftooda u yeedhiyaan waxa iyagu ay doonayaan farxad bay isku yeedhinayaan xidhiidho muhiim isku yeedhinayaan qaacido waxa jirta la yiraahdo qofka maskaxdiisa khashin qub ay noqoto wax walba daraamo iyo khashina naftiisa ka buuxiya waxa sun baad dareemaysaa qofka maskaxdiisa ku haba afkaar awood leh erayo wanaagsan bishaaro rajo farxad dad macno noloshiisa u sameynaya isku day isdhiibid la'aan laab furan balla anta qof inta isgeliyana intaas way halaya so waxaad hadda haysatay waxaad hadda dareemaysid ma aha waxyaabaha aad gacanta ku hayso uun waxa go'aamiye noloshaada waa gudahaaga waa wixii aad isgelisay baad dareemaysaa haddii isbedel rabno waxaad meel adag ku qorataa halka ku qoro ayadii waxay oran jirtay dhixidkan wax ku galay halkaas hoose wax ku galay marka halka dambe gasho meel adag ku qoro arintan ku sheegayo meel adag ku qoro inta ka soo aad ku bes afkiina ka ilaaliya because kelmaduhu awood weyn bay ku leeyihiin ciyaalka iyo ubadka markay korayaan from the age of 1 to 7 wixii lagu yiraahdo saameyn weyn buu ku yeeshaa ciyaalkeena waxa ku dhaca iyo kalsoonida iyo qabka u diiday inta badan because waxaan u soo dhiibayno ku soo akhriyay kelmado awood badan oo negative ah markaad ciyaalkaaga la hadlayso ka ilaali inaad la compare garayso qof kale qeyrka waa sida walba wuxuu leeyahay dariiq gaar ah standard isu sheeg waxaad u sheegtaa qiyam iyo akhlaaqiyad sare oo ku bedeli karo kuwa hayo ha ku oran cibaadadeenkaagu sidaas u sameeyaa aad maxaa ku haya cibaadadeenkaagu isku mid maaha waa laba adduunyo kala duwan qof walba wuxuu leeyahay fursado u gaar iyo caqabado u gaar ah kelmadaha negative-ka ka ilaaliyo ubadka xitaa qofka weyn ee ma aragtay majuurka ee qaangaadhka wixii maskaxdiisa ku soo noqon bal u fiirso maanta markaad sii socotid wax dhageyso bal hada gaarigaaga ama mobilkaaga wax ka daaro waxaad dhowr jeer ku celceli waxaad sarki markaad shaqada tagto wixii afkaaga ku soo noqnoqonaya wixii aad maqlaysay afkaagu ku soo degdegaya wada aragteen Soomaa maskaxdu waa sponge oo kale wixii aad maqashiiso ay ku soo marka halka waxaan ku gabagabeynaynaa waar inta yar ee kurka ka soo adkaada maanka weeyaan waa sida adduunyada u aragto waa hab fakarkaaga intaas aad go'aaminaysa qofka tahay waxaad sheegtidna wuxuu ka turjumaa waxa maankaaga ku jira waxa la yiraahdaa waxyaabaha qofka maankiisa fura ee intellectkiisa iyo aqligiisa koriya waxa kamid ah la yiraahdaa layliga ama jimicsiga aroortii hore oo 30 daqiiqo ugu horeeyay maalintaada hadaad ku bilowdid baa la yiraahdaa aerobic exercise waxyaabaan jimic orodka ama maaragtay ama gucleynta ama socodka waxyaabaha wadnahaaga iyo sanbabkaaga neeftuurka ku soo waxa la yiraahdaa waxay neeftuurkaasi wuxuu geliyaa dhiig oxygen badan leh ayuu u diraa maskaxdaada qaybteeda la yiraahdaa cerebralku waa qaybta qaabilsan fakarka halabuurka go'aan qaadashada iyo xal sameynta dhimashada dhabta waxaan moodnaa maalinta qofka la aaso dhimasho kale jirta waxa jira dad nool oo dhintay haddana waxa jira dad socda haddana dhintay markay maalmahaagu isbedeli waayaan ay maalin walba la mid noqoto maalinta kale ee shalay iyo maanta isku kaamid yihiin ay bariye saan dambe daraad la mid yihiin ee noloshaada uu ka dhex baxo wixii isbedelkii waxa kaliya ku kordhaya uu yahay da iyo foolxumo ilaa markaad daynayso foolxumaanaysa timaha iyo ciduun baa kugu baxaya that's it daawun baa ku kordhaysa waxa kaliya isbedelaya markuu da'daada yahay that's when you die waa markaasaa dhimatay markaad duco nagaga kaa waajibta annagana ilaahu ninkii ama nolol ama geeri miduun sama marka waxaasoo dhan waxay ku bilaabmaan maanhagaaga
sidaad adduunka u arkayso sidaad u fikirayso waxaad ka fikirayso waxa maskaxdaada ku soo noqnoqonaya marka intaa qorshe ka yeelo waxaan siinayaa talaabooyin aan isla leeyahay manhajaaga way sixi karaan waxbay ka tari karaan waxa ka mid ah maskaxdaadu intaanay adduunyada u soo bixin inaad adigu wax u soo sheegto dadka qaarna waa fal curiyayaal ereyga halkaa ku gunto walaal halkaa ku gunto halkaa meel adag waa fal curiya iyo fal celiye midna wuxuu shaqo ka dhigtay inuu adduunyada daawado ka sheekeeyo midna shaqadiisu waxa weeyaan getting the job done waxbaan qabanayaa anu waxay doontaa noqoto doer noqo isku day inaad wax samaysid ha khaldamo anu berigaan bilaabay speaking careerka wallaahi been idinma sheegayo berigaan bilaabay may ahayn xitaa wax laga hadli karo unethical bay ahayd wax dhaqanka ka baxsan wax lagu dhici kara may ahayn waa kayninta lagu hor istaajiyo lagu yidhi dariiq ka dhex samayso ma ku dhici lahayd laami weynahaad soo raadsan lahayd waa laami idin la yaqaaniy gay odhan lahayd anino ilaahay baa igu waday addoon baan ahay ilaahay baa iska keenay ilaahay markuu rabo inuu cid bedelo cid iyaga ka mid u isticmaalaa way iga maqneed aniga awooddeeda ma ahayd ilaahay ma ahayd markaan bilaabay waa layla yaabanaa bad hooyadii baa lagu dacweeyey qamar waa cabdaay inankaagii waa kan qori leekaadee timihiina ku baxeen siduu u qayliye maxaa ka galay dugsigiisa iyo biriigiisa yar muu bisinka u qabsado dugsigiisa yar iyo biriigiisa yar muu bisinka u qabsado hooyadii baa igu duloojatay ilaahay kugu dhaashay haddaan ku dhalay waxaa hooye faraha ka qaad khayrka waa kuwa waa run hooyadu waxay jeceshahay inuu inankeegu iska qurux badnaado u labisto oo isdaldalaaliyo maaragtay noloshaada haddaad rabtid inay inta hore iisi noqoto fine iskaga raaxayso hadhow markaad 60 jir noqotid baad kaariyoon la noqon that's how it works ama noloshaada xilliga hore adayga iyo kulaylka iyo dadaalka iyo ku dhaca iyo kalsoonida bar xagga dambe ka fudaanaysa kuweena hadda dadaalaya dididaya ee saddexda shaqo isku qabanaya habeenkii soo jeeday night shift-ga sameynaya ee waqtiga yar oo soo haray Uber-ka ku tuuranaya 10 years later noloshaada iyada ka fudaan doonto kuween hadda raaxaysanaya maaragtay iska baashaalaya maqaaxiyaha fadhiye sheekadu la weyn tahay in la labisto wax maaragtay la iska xaragoodo oo la iska baashaalayo wax la taana berri ku nasanayo qofka dadaalay trust me maalintaasaad shaqayn maalintaasaad waliba shaqo adag oo fool xun qaban ma jirto nolosha mar ka mid ah oo adoo iska raaxaysta aad natiijooyin fiican helayso qof kastoo taqaano oo wax horumar ka mid ah ama wax guul ka mid ah haystaana hamoodin maalin aad nasanayso oo iska raaxaysanaysa buu shaqaynayay habeenaad si fiican u seexatay buu soo jeeday ama haddaad shaqada qabanaysaa ama hadhow daatid waxan waa process hamoodina inay iska fududahay anu markaan halkan imiday waxa laga yaabaa dadka qaar inay yara arkayaan noloshii oo yara fududaatay oo maxamed cumar baa halkan maray oo والله وأشقيس والله إنكم نصيب بدنا وأشقيس نكي سجاها والله هو شو أسكو بيجان تاي عندنا ما أوجانتو أنت شقة قبضتي iyo waxaad ka shaqaysay iyo habeenadaad soo jeeday iyo xirfadahaad isbartay iyo dadkaad baratay iyo naftaada quality-gaad u yeeshay iyo sidaad uga shaqaysay maskaxdaada iyo maankaaga iyo sidaad ugu dadaashay inaad wax noqotid xitaa waxa lagu oran marka natiijooyinkaygaada shaa lagu oranaya wallahi uu nasiib badan yahay nasiibka ani ahiliya adigu hili way oo baxay ma jiro qofka maanta inuu wax noqdo rabaa meeshuu doono wax ka noqon karaa waxa ugu weynaad wax noqoshada ku bilaabi kartidna waa halkaad joogtid uun excel garee inta yaraad ka shaqaysid uu soo excel garee anu kuma lihi walaal kuma lihi caawa ama habeen dambe ama saakunta ama sanad kadib noqo khabiir laga dambeeyo kuma lihi walaal waxaan ku leeyahay halkaad hadda joogtid uun xidig ka noqo qofka ugu fiican ee la hadal qaado noqo talaabo weeyaan halkaad hadda joogtid haddaad excel garaysid meesha labaad baad u gudbaysaa meesha labaad ee tagtay haddaad excel garaysid meesha saddexaad baa u gudbaysaa meesha saddexaad haddaad excel garaysid meesha afraad baa u gudbaysaa sida loo karaa waa sidaa anu waxaa jirtay beri aan baryootami jiray xafladaha laga qabto magaaladan ku noolaa Boorama wallaahi beri aan baryootami jiray jirta oo odhan jiray walaal in yar baan hayaa ku daraa oo lagu odhan jiray dad waaweyn baa fadhiya shalay baa markaan mikrofoonka qabtay lagu qosli jiray oo la odhan jiray alka yar cawlan muxuu sheegayaa waan jeclaa waxa ii sawirnayd meesha u socdo waxa ii sawirnayd inaan halkan oo kale idin kala hadli doono waxa ii sawirnayd in fariinteeda la gadan doono waxa ii sawirnayd in erayadeedu wax bedeli doonaan waxa ii sawirnayd dariiqan inaan ka dhigi doono dariiq dadku soo raadsado waxa ii sawirnayd waxan laakiin qofnima garanayn maadaama ina garanayna way igu caayinay la yaabanayn hadda waa jeceliye adiguna waa saas oo kale markaad meherad cusub bilaabaysid waxa lagu oran war waxa waa lagu cabdisaaq maxaa lagu yiri maalinta meheradaad furaysid
I'm sure waxa lagu yiri Ahmed baa kamid ah laga yaabaa dadka waxa ku yiri war corona jira furin baa lagu yiri laga yaabaa ma jirin waay marka qof kasto wax bilaabay markuu bilaabay waa lagu qoslo cali war waxa dad baa kaaga wareeg qodobka halkaas ku xidhaya qodobka koowaad wuxuu ahaa manhaga attitude maanka laga dhaqaaqa waa kii hadra walaha Allah u naxariiste inta maanku gaajaysan yahay guuli waa wali qof $1 milyan haysto qalbiga caydhka aad arki oo ka muuqato inaanu dhadhamin badnaan iyo barwaaqo qof waxa darkay aan baad ka hayno caaw meel seexdaan hayn laakiin qalbigiisa qaninimada ka muuqata adoo yaabis oo soo ninkan caaw meesha seexan lahaa ma hube hay hayd waxaan oo farxad iyo waxaan oo niyad sami iyo waxaan oo kalsooni maanka waa maskaxda marka kurka ka aad ka walaan qodobka labaad buu gudbinayaa oo is aaminid belief ABCD baan ku dhisomay belief to qaacidada labaad ee aanu dadkeena baraa waxa weeyaan ku celceliyaa waxa weeyaan dib ha u soo curato is aaminidii nafteena ku qabnay sideen u soo noqonaysaa dibde si ugu soo noqonaysaa waa inay noqotaa agenda nafeedood aad u soo dhigaysid oo naftaada aad kula dadaashid oo naftaada ku khasabtid oo naftaada aad bartid oo joogtaysid inaad naftaada u sheegtid inaad wax noqon kartid qof kasto wax noqday waa adoo kale